وحنها يهدي بسيدا وحنها يوانا معلقا واجي بريبا أو بخلقا وراسو واجي بريبا أو بخلقا وراسو وحنكو ورورينا وادنكينا وحبرتا وحنبار واتسي بسم الله الرحمن الرحيم kulanti wacan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aanu idinka diyaarinay arday dhawaan ka qalin jabisay jaamacadda Mount Kenya laamaheeda kala duwan ay ku leedahay qaar ka mid ah wadamada bariga Afrika in ka badan 6,000 oo arday oo ka qalin jabiyay laamaha kala duwan ee jaamacadda Mount Kenya ay ku leedahay qaar ka mid ah wadamada bariga Afrika oo ay ka mid yihiin Kenya, Uganda, Tanzania, Somaliland, Burundi iyo Rwanda oo ku qalin jabinayay shahaadooyinka PhD, Master iyo Degree ayaa xaflad ballaaran loogu sameeyay xarunta guud ee jaamacadda Mount Kenya ay ku leedahay magaalada Thika ee dalka Kenya. munaasabada xafladan qalin jabinta oo ay ka soo qayb galeen kumanaan dad ah oo isugu jira mas'uuliyiin iyo madax ka kala socda wadamada ay ardaydaasi ka soo jeedaan professoro iyo macallimiin iyaguna wax ka dhiga laamaha kala duwan ee jaamacadda iyo qaar ka mid ah waalidiintii halka ardaydoodu ay ku qalin jabinayeen ayaa ka soo qayb galay xafladan. waxaa sidoo kale ka mid ahaa 6,000 ee arday halkaasi ku qalin jabinayay ilaa 11 arday oo ka socda wadanka Somaliland oo iyagu wax ka barta jaamacadda Mount Kenya xarunta ay ku leedahay magaalada Hargeysa ee Jamhuuriyadda Somaliland. madax iyo mas'uuliyiin badan oo ka socda wadamada Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, Tanzania iyo Somaliland oo ay soo casuumeen maamulka jaamacaddu ayaa waxa ka mid ahaa wafdi ka socda Jamhuuriyadda Somaliland oo hogaaminayo wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare Abdullahi Ibrahim Habane. waxaana wafdigaasi ka mid ahaa wasiiru dowlaha wasaaradda maaliyadda Maxamed Faarax Ducaale, gudoomiyaha komishanka qaranka ee tacliinta sare Professor Xuseen Xasan Guuleed, agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Dr. Saleebaan Jaamac Deeriye iyo la taliyaha dhinaca farsamada wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare Mustafa Maxamed Jaamac. dhammaan mas'uuliyiintaasi oo seer caalami ah ay u qaabileen maamulka jaamacaddu ayaa muddo dhowr maalmoodaba waqtigooda u horay sida ay taageero ula barbartaagnaan lahaayeen ardaydaasi dhamaysatay jaamacadda una dhiirigelin lahaayeen sidii dadaalkooda waxbarasho ay halkaasi uga sii wadi lahaayeen una la qaybsan lahaayeen farxadooda iyo reerreentooda qalin jabineed ee xafladaasi. geesta kale haddii aanu milicsano dhinaca ardayda ayaa 11 arday ee ka socda Jamhuuriyadda Somaliland oo iyagu sida xidigaha cirka uga dhex iftiimayay 6,000 oo arday oo ka socda qaaradda Afrika oo ku qalin jabinaysay goobtaasi ayaa mar walba ku jeenay qaarna calanka bilicda dheer leh ee astaanta u leedahay Jamhuuriyadda Somaliland taasi oo farxadooda qalin jabineed ay u dheerayd iyagoo ahaa ardaydii ugu horeysay ee ka socota Jamhuuriyadda Somaliland ee ka qalin jabisay jaamacadda Mount Kenya lana qalin jabisay 6,000 oo arday oo ka socda wadamo kala gedisan oo ka tirsan qaaradda Afrika iyagu ku damaashaadayeen calanka Jamhuuriyadda Somaliland markastana ay ruuxayeen. kahor intaanay xafladu bilaabmin ayaa madaxdii iyo mas'uuliyiintii ka socotay wadamada ay ardaydu ka soo jeedaan oo ku labisan dharka ay professoradu ku labistaan ee ay astaanta u leedahay jaamacadda Mount Kenya oo u soconaya si koox-kooxa ay kooxda baambaydu u soo galbisay madashii loogu talagalay inay ku nastaan kuna daawadaan xafladan.
bilowgii hore ee xafladda ayaa halkaasi waxaa ku soo bandhigay heeso iyo ciyaaro dhaqameedyo kala gedisan qaar ka mida fanaaniinta iyo kooxaha hidaha iyo dhaqanka oo halkaasi ku muujiyey ciyaaro dhaqameedyo laga ciyaaro qaar ka mida wadamada bariga Afrika. halkaasi ka soo jeediyeen mas'uuliyiintii iyo madaxdii ka soo qayb gashay xafladani kadib ayaa halkaasi waxa marti sharaftii ballaarneed ee goobtaasi isugu timi iyo mas'uuliyiinta jaamacadda iyo sidoo kale ardaydii goobtaasi ku qalin jabinaysayba khudbad dheer oo ku baxaysa afka Ingiriisiga ka soo jeediyey xogayaha komishanka tacliinta sare ee Jamhuuriyadda Soomaaliland Professor Xuseen Xasan Guule oo isagu ku hadlayay afka mas'uuliyiinta wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliland iyo sidoo kale afka mas'uuliyiinta ka socda Jamhuuriyadda Soomaaliland ee ku sugan xafladda. In order to convey thanks from the Republic of Somaliland delegation here today. For the hospitality and kindness you have extended to this delegation of Somaliland. And for inviting us into the 9th graduation ceremony of Mount Kenya University here in Dhaka. MKU, Mount Kenya University, has also a very beautiful campus in Hargeisa, the capital of Somaliland, with close collaboration and working spirit with that campus and Mount Kenya campuses large. intaasi kadib ayaa waxaa halkaasi hadallo kooban ka soo jeediyey mas'uuliyiinta iyo mulkiilayaasha jaamacadda Mount Kenya Simon Gichero iyo marwadiisa oo halkaasi abaalmarina ku bixiyay iyo sidoo kale maamulaha guud ee jaamacadda Mount Kenya Professor Victoria Wells. I had my dear wife, Jane Yudo, who is with me here and I want to invite her because I present her welcome call to the founder. She is here. You have to hear. Let's have it, isn't it? James, are you here? Chief guests, distinguished guests, parents, students, we are delighted, we are happy, and when we start here, I feel represented from Wiki. So, take over.
So they move from Nairobi to Dubai, we pay for the accommodation, the two of them. It was meant for Joseph, but in Bible it says, what God put together, no man shall put aside. So the only also, you still doing, and the husband one, of course, the two of them will go. So this is the game, is your task not to give them the gift. Academia and industry, we partnered with private, nonprofit, and governmental institutions to support our communities. Mount Kenya University, in partnership, has done such activities as provide clean and safe drinking water in Turkana, prevent HIV/AIDS in Korea, educate the girl child in Rwanda, and right here in Thika, working with Thika Level 5 to develop a state-of-the-art mortuary for all of us and as an anatomy lab for our School of Medicine. I congratulate all of us because these things are leading us to scale the heights of education. And we are doing this in partnership to educate students from Garissa and from Kisii, from Mombasa and Kakamega, to Rwanda and the Republic of Somaliland, of which we have a wonderful representation here, and beyond. Not just through virtual education, but through on-the-ground education. waxaa iyaguna kelmado kooban halkaasi ka soo jeediyey 11 arday ee ka socday jamhuuriyadda Somaliland ee ka qalin jabinayay jaamacadda Mount Kenya iyagoo farxadooda ku cabiray iyo dareenkoodu heerka uu taagan yahay iyo sida ay u arkaan munaasabadan maanta ugu faraxsan yihiin. bismillaahir rahmaanir rahiim, alxamdulillahi rabbil aalamiin wa salaatu wasalaamu ala rasuulillah. ama bacd magacaygu waa Xuseen Ibraahim Xasan, waxaan runtii kamid ahay dhalinyarada amaba ardayda maanta ka qalin jabisay jaamacadda Mount Kenya xarunteeda Thika ee Nairobi. aad baan runtii ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo maalinta xafladeedan qalin jabinta. annagu waxaanu ka nimid caasimadii Hargeysa ama xarunta jaamacadda Mount Kenya ku leedahay Hargeysa Somaliland baanu ka nimid. waxaanu inta yani wadada dheer u soo marnay inaan ka soo qayb galno xafladan. aad baan maanta dareen ahaan runtii u faraxsanahay. aad baan dareen ahaan ula qaadanay dhammaan ardaydii 60,000 ka badnayd ee ka qalin jabisay jaamacadda Mount Kenya. shucuurteedu aad bay u wanaagsan tahay. annaga xafladda qalin jabinta waxa maanta noo dheereed inaanu calankayaga iyo qadiyadayda Somaliland meesha ka dhex muujino, aanu ka dhex sheegno in calankayaga maanta meesha laga dhex taago. qiimayn gaara iyo runtii waxay noogu fadhidaa annagana macna gaaray taasi noo sameynaysa. weydun arkaysan wadamadii la tirnay inay Somaliland qaranka Somaliland ay kaalmaha dhexe kaga jirtay. sharaf gaar iyo sumcad gaar ay noo tahay inaanu qarankayaga ambassador noqono, inaanu annaga nafteeda inaanu xagga maanta gaadnana farxad weyn bay noo tahay. iyadoo jaaniskan uga faa'iideysanna runtii waxaan u mahadnaqaynaa guud ahaan iyo gaar ahaanba xaggan aan doonayna inaan uga mahadnaqno maamulka guud ee jaamacadda Mount Kenya oo xaruntii noogu keenay magaalada Hargeysa Somaliland. sidoo kale waxaan doonaynaa inaan u mahadnaqno wasiirka wasaaradda maaliyadda Samsam Cabdi Aadan oo deeqda waxbarasho runtii noo fidisay. si gaar ah ayaan runtii ugu mahadnaqayaa, horena waan ugu mahadnaqay, iminkana waan u mahadnaqayaa. aad baad u mahadsantihiin. waxaan ka qalin jabiyey jaamacadda Mount Kenya qaybta MBA Finance. waxaan jecelahay inaan jaaniskan uga faa'iideysto oo ugu mahadnaqo cid kastoo iga caawisay inaan guushan gaadhno taariikhiga annagoo maanta ku qalin jabinayna campuska jaamacaddaasi ku yaala Nairobi Mount Kenya. waxaan jecelahay inaan marka hore soo mahadnaqo wasiirka wasaaradda maaliyadda oo noo suurtagelisay inaanu dhamaysano waxbarashadeedan masterska. waxaan jecelahay kale inaan halkan uga maqo dhammaan cid kastoo naga caawisay. waxaan jecelahay inaan halkan uga mahadnaqo hooyadii Cali Maxamed Faarax, xaaskayga Caasha Umar Cilmi iyo dhammaan cid kastoo walaalkay Kiisa Xasan Saleebaan oo isaguna ka mid ah dadka maanta halkan nagu soo dhaweeyay nagala qayb qaatay qalin jabinta. waxa kale oo jecelahay inaan mahadnaqo maamulka jaamacadda iyo dhammaan tiifiyada Somaliland ee iyaguna halkan la joogay baahinaya Hon Cable iyo qarankaba. aniga ku bilaabay magacayga Khadi Ali Feer baa la yiraahdaa. anu ma yahay ardayda qalin jabisay laakiin waxaan ku hadlayaa afka ardaydan kaga nimi Somaliland caasimadda Hargeysa.
waxaan leeyahay ardaydaas aan waxaan ahay indhihiinnii dhegihiinnii afkiinnii waxaan arkay oo waxaad soo aragteen waxaanu maanta bartan ku soo arkay xaflad aad iyo aad u qiimo badan midaan hore loo arag hore aan hargeysa uga soo arag aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa jaamacadda Mount Kenya iyo wasiirkayga wasaaradda maaliyadda saaxiibaday ama walaalahay deeqda waxbarasho siiyey walaalahay ama saaxiibaday waxaan leeyahay congratulation aad iyo aad baynu ugu mahadnaqayaa بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله أنا مقعد قاعد فتاح عبد الرحمن موجي وعن كم ذا هرب ما أنت كقلن جبت سمستر حرمت التكا كرت مها رقيس السمان لان وعن تعالى كلنا هلقا ما هنقول إلهي سبحانه وتعالى مركب بعضنا عن تعالى هلقا والدك ما هنقول ويري آمين على الحمد لله مركب بعضنا وسيرك وسهرد مالية جمهورية السمان لان مروسوم سمح لي آدم مركز دحاد وحنا هلقا تعالى ما هنقول جامعة المنطقية يونيفرسيتي مركز دحاد وحنا هلقا تعالى ما هنقول قدومية جامعة دقري تقدر سعيد بسم الله الرحمن الرحيم runtii maanta waa maalin qaaliya waa maalin agteeda ka weyn annaga ardayda jaamacadda Mount Kenya tiradoodu tahay 12 arday kana qalin jabinay saddex kulliyada kala accounting and finance strategic management iyo human resource management runtii maanta xafadan waxaan uga faa'iideysanay waxaan halkan aad iyo aad uga salaamayaa aabbahay Cabdi Cilmi Yuusuf iyo hooyada Koosadan Cabdullaahi sidoo kale waxaan halkan aad iyo aad uga mahadnaqayaa wasiirka wasaaradda maaliyadda Marwo Sabsam Cabdi Aadan iyo dhammaan wasiiradii kale ee wasiirka waxbarashada wasiir dowladda wasaaradda maaliyadda agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka oo dhammaantoodina halkan noo soo raacay sidoo kale waxaan halkan aad iyo aad maanta ugu faraxsanahay in walaaladay asxaabtayda aanu ka wada qalin jabinay masterta qowtanka ardayda sidoo kale waxaanu halkan maanta farxad weyn ah inaanu ku nimi baasaboorkaygii oo hargeysa kaga nimi ilaa Nairobi calankaygii aan hoos saarsanayno alxamdulillah rabbil caalamiin alxamdulillah rabbil caalamiin ugu horeyn waxaan mahadnaqayaa maamulka jaamacadda Mount Kenya oo naga caawiyay in aanu bartan ku qalin jabino isla markaana aan nimaadno marka labaad waxaan mahadnaq baan u jeedinayaa mas'uuliyiinta wasaaradda maaliyadda oo ah kuwii asalka ama gundhiga u ahaa in aanu mastersta programka jaamacadda Mount Kenya ku qaadano iyagoo naga caawiyay in aanu halkan ku nimaadno baasaboorka Soomaaliland marka labaad waxaan mahadnaqayaa dhammaan ardayda Mount Kenya ka qalin jabisay gaar ahaan ardayda aanu soo wada safarnay 12 arday iyo dhammaan 13 kale arday aniga oo ka faa'iideysanay fursadan waxaan kalan u sheegayaa ardayda reer Soomaaliland in ay jaamacadda Mount Kenya jaamacad wanaagsan tahay isla markaana ay ku soo hirtaan annaga oo markii hore u maleynay in ay jaamacad tahay deese jaamacadaha kale oo kala ah laakiin imika ka dhabaysay hadafkeedii ahayd inay nasoo in aan ku qalin jabino main campuska jaamacadda taas oo aanu hadda u taaganahay bismillaahir rahmaanir rahiim aniga ku bilaabaya magacayga waa Amiro Yuusuf Cabdi waxaan ka tirsanahay ardayda Soomaaliland ka qalin jabisay jaamacadda Mount Kenya qaybteeda ku taala Hargeysa alxamdulillah rabbil caalamiin ilaahay baa mahad leh aad baan maanta u faraxsanahay waxaan ku faraxsanahay inaan dalkayga baasaboorkayga kaga soo duulay calankayga Soomaaliland inaan haysto jaamacadda Mount Kenya inay dalkayga igu timid wax igu bartay waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa madaxda jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan wasaaradda maaliyadda gaar ahaan wasiirada wasaaradda maaliyadda wasiir dawlihi oo nala socda agaasimihii guud ee hore wasaaradda maaliyadda imkana ah wasiirka wasaaradda caafimaadka waa madaxda ka mid dhalisay inaan halkan istaagno stage-kan inaan nimaadno deeqda waxbarashada noo fidisay aad iyo aad baa dhammaan wada mahadsantiin labada TV ee qaranka iyo kaybilka waxaan munaasabadan uga faa'iideysanayaa si gaar ah manaq ballaaran ugu diraya waalidkaygii heerkan soo gaarsiiyay ayadoo aad u jecelahay labadayada inamood iyo dhammaan family-gayga iyo asxaabtayda oo dhan bismillaah walhamdulillah wa salaatu wa salaam ala rasuulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd magacaygu waa Maxamuud Maxamed Ducaale waxaan ka mid ahay ardayda jaamacadda Mount Kenya University tika main campus maanta oo bisha 12 tahay maalin Jimcaha ka qalin jabiyay Master of Business Administration Finance and Accounting Stream waxaan halkan uga mahad celinayaa dhammaan maamulka jaamacadda Mount Kenya oo noo soo dhaweeyay si heer sare ah haddaan nahay ardayda reer Soomaaliland oo casho sharaf xalay noo sameeyay oo aad iyo aad meel kasta na soo tusay marlabaadka waxaan u mahad celinayaa hay'adda taakula Somaliland Community oo sponsorship ka siisay oo ah hay'addan u shaqeeyo way mahadsan yihiin TV-ga qaranka iyo Home Cable TV oo iyaguna halkan munaasabadda nagala qayb galay wasiirka waxbarashada agaasimaha guud caafimaadka
gudoomiyaha komishanka waxbarashada iyaguna nagala qayb galay iyaguna aad bay mahadsan yihiin waxaan rajaynayaa fursadan ardayda reer Soomaaliland uga faa'iideysanaya dhammaan ardayda reer Soomaaliland ee waxbarasho doonaysa heer caalami oo la aqoonsan yahay oo dalka gudihiisa inay Mount Kenya University ka faa'iideystaan iyadoo دمان أفريقيا كلها كومباسيو. الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مقعي قوة تهاني محمد شيخ، حقيقة لم تبي جامعة مونت كينيا، faculty of جامعة مونت كينيا specialization of human resource management. بنو مهضنا قيمة ضحى كسوق قبل جامعة ما ترى مال أدو قيمة بدن لأنه حقيقة لم تبني ماستر كي شهادة إن مدة سويني إن إلى 2013 كي إلى 2013 كي سويني شهادة قاضنا مركز أدي بنو فرح سنة ماتها. بسم الله الرحمن الرحيم. مقعي قوة حمزة عبد القادر الشيخ حسين وحن كمد هيردد مانت بيش تاي كوي تون كبيشي لبي تونات لبعض كونيشن تمكا كقلن شبيه جامعة مونت كينيا يونيفرسيتي قيبتها بيزنس ادمنستريشن سبيشال فاينانس اند اكاونتنج waxaan halkan fursad ka faa'iideysanayna ciliyo dhammaan maamulka jaamacadda Mount Kenya University oo markaan halkan keenay aad iyo aad noo soo dhaweeyay waxaan kale aad ugu soo halkan uga hambaleynayaa wasiirka wasaaradda waxbarashada wasiirka dawladda wasaaradda maaliyadda agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka iyo maamulaha guud ee jaamacadda Mount Kenya Hargeysa campus Maymuna dhammaantoodna aad iyo aad baan u salaamayaa waana maalin aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan dhamayno shahaadada labaad ee master's degree-ga magacayga waxa la yiraahdaa Ifraax Axmed Cawl waxaan dalkan Kenya u imid inaan ka graduate gareeyo jaamacadda Mount Kenya ku taala dalkan Kenya Tika waxaan halkan ka salaamayaa waalidkay Axmed Cawl Ismaaciil hooyadii Hiba Xasan Cabdi iyo walaaladay dhammaan maanta farxadeyda lama soo koobi karo maadaama aan shahaado heer sare oo caalami ah ka qaatay dalkan Kenya jaamacadda Mount Kenya waxaan mahad gaar ah u jeedinayaa wasaaradda maaliyadda oo ay siisay scholarship-kan waxa kale oo aan si gaar ah ugu mahad celinayaa dhammaan maamulka macallimiinta Mount Kenya University dhammaan kambasyada Somaliland iyo dalkan Kenya waxaan leeyahay ardayda Somaliland ee waxbarashada jecel nagula soo biira Mount Kenya University Hargeysa campus waxaan kamid ahay ardaydii ka qalin jabisay maanta jaamacadda Mount Kenya waxaan hambalyo u dirayaa oo aan uga mahadnaqayaa waalidkay dawladda Somaliland wasiirro nagala soo qayb galay wasiirka waxbarashada ugu sareeyay tiimka wasiirka waxbarashada hogaaminayay runtii waxbarashadu ma dhamaato maalintaad mid dhamaysaba tu kale ayaa kugu soo banaanaanaysa marka waxaan leeyahay dhalinyarta iyo ragga imka ku dhex jira bahasha waxbarashada halka ka sii wada waa mahadsantiin waxaan hambalyo kale u dirayaa oo halka ka salaamaya TV-ga qaranka Somaliland gaar ahaan wakiilka halkan ku fadhiya Mr. Cabdilaahi bismillaahir rahmaanir rahiim anigu magacayga waa Xasan Isaaq oo kalan jibiyay Mount Kenya University Masters in Public Administration waxaan soo dhaweynaynaa anigoo reer Kenya ah laakiin Whole Africa TV iyo ardaykii maade Mount Kenya oo Hargeysa waxaana ugu dambeyntii gabagabadii xafladda si halkaasi hadallo kooban uga soo jeediyay ardaydii ka socotay Jamhuuriyadda Somaliland ee dhamaysatay jaamacaddaasi wafdigii ballaarna ee ka socday Somaliland ee uu hogaaminayay wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare iyagoo ardayda ku booriyay inay dadaalkooda waxbarasho halkaasi ka sii wadaan kuna barbar taagan yihiin guushan ballaaran ay ka gaadheen xafladooda qalin jabinta shahaadada masterta bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillah waxaanu runtii halkan markii hore u yimi shir SDF ta waanan ogaa inay jirto qalin jabinta jaamacaddan Mount Kenya University oo ay inoogu jireen arday ka qalin jabinaysa Hargeysa sidaa darteed markaa waxay ahayd qorshahaygu shirka markaan dhamaysto inaan sugo qalin jabintan maanta oo ay ardaydaas ku qalin jabinaysay sababtoo ah ardayda maanta halkan ku qalin jabinaysay masterka ku qaatay dhamaantood waxay ka tirsan yihiin wasaaradda maaliyadda oo wasaaraddan ka ahay wasiirka dawladda marka khasab bay tahay ama nagu ahayd inaanu aniga iyo wasiirka waxbarashada oo isaga waxbarashadiina oo qaabilsanba inaanu joogno ardayda garab istaagno la joogno kaalintii waalidkooda ugu jirno ilaa ay dhamaystaan qalin jabintooda oo ay babaxayaan aan ogaano xaaladooda iyo waxay ku sugan yihiin waxaanu kaloo kulamo la yeelanay madaxda jaamacadda oo aanu ka codsanay sidii ay u ballaarin lahaayeen jaamacadda
ku taalla qaybta ay haddeer hargeysa ka fureen iyo sidii aynu uga heli lahayn deeq waxbarasho intaba waa mahadsantihiin حاج حسين أصلي في بسم الله الرحمن الرحيم أولا هذا waxaan ku nibadnay martiqaadan ka helnay Mount Kenya University oo Hargeysa ku lahalaan maadaama ay arday wax ka baranaysay oo u badnayd wasaaradda maaliyaddu ay muddo 2 sanadood wax ka baranayeen shahaadada masterkana ay halkan maanta ku qaadanayeen inaan iyagana dhiiri gelino martiqaadkana ka jawaabno aan u nibadnay mar labaadka wax weeye hawlo kale oo halkan inaga xidhan ayaa jira oo fara badan oo aan iyagana geli doono wixii natiijo ka soo baxana aan ku idila socodsiin doonaa dad warbaahinta tihiin kuwaas oo kamid yihiin wad la socotaan hay'adaha taageera donoriska amba kuwa wax soo siiya halkan ay fadhiyaan oo fadhigoogu yahay marka inaan muwaafaqad la yeelano sidii ay waxay bixinayaan waxtar inoogu noqon lahaa wixii munaasib ah aan doonana loogu qaban lahaa ma idan kala sheekaysano yaan doonana waxa kale la sheekaysan doonaa madaxdan jaamacadahaba iyo jaamacadda Mount Kenya iyadana sidii halka looga balaarin lahaa iyo sidii waxtar dhinaca waxbarashada ah ay inoogu yeelan lahaayna balan baan ka leenahay waxaan halkan u nimi casuumad nalagu ay jaamacadda MKU nagu soo casuuntay halkan inaanu nimaadno taasoo aan soo raacnay ardayda halka ka qalin jibisay Soomaaliland u dhalatay oo dhamaantood intooda badan ka tirsan wasaaradda maaliyadda iminka joogin wasaaradda maaliyadda ardaydani waxay bilaabeen iskuulkan ama jaamacaddan waqti aan anigu ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda taasoo aan suurtageliyay inaan ardaydaas helaan waxbarashadaas waxaan kaloo uga mahadnaqayaa wasiir Samsam oo wasiirka maaliyadda oo hadda oo suurtagelisay inay dhammaystirto intii u harsanayd anigana ardayda laftigooda iyo jaamacadda labaduba waxay ugu khasab iga dhigaan oo teamkaygu adkaa inaan casuumadda kala soo qayb galo maadaama aan arkana midhihii aan beeray halkay ku dambeeyeen aad iyo aad buu mahadsantihiin waxaan kaloo aad ugu mahadnaqayaa runtii intaan halkan joognay miidiyahan Soomaalida ee telefishinka qaranka iyo kuwa kale af Soomaali ku hadlaba ka socdo oo ilaa iyo shalayto aan arkayo taagnaa iyagoo daalan gaajaysan u taagnaa inay barnaamijka wax ka duubaan aad iyo aad baan idinku mahad celinayaa ardayda Soomaaliland ka socota waxaan ugu mahad celinayaa akhlaaqda wanaagsan ee intay halkan joogeen wadankooda ku turjumayeen ay muujiyeen iyo kale ee wadannimada ku jirta calanka Soomaaliland huwan yihiin marka Soomaaliland ka sameeyaan aad iyo aad baan idinku mahad celinayaa daawadayaasheeda qiimaha iyo sharafta badan ee satooska barnaamijkan uga daawanayay TV-ga qaranka Soomaaliland aad ayaa ugu mahadsantihiin qadarka daqiiqadaha ee waqtigeena noo horteen daawadayaal intaas ayaan ku soo gabagabayn doonaa barnaamijkii gaarka ahaa ee aan ku soo qaadanay xafladii dhawaan loo sameeyay ardaydii ka qalin jabisay jaamacadda Mount Kenya oo tiradoodu ahayd ilaa 6,000 oo arday isla markaasina ay ka mid ahaayeen 11 arday oo ka socday Jamhuuriyadda Soomaaliland barnaamijku waxa uu idinkaga imanayay xafiiska TV-ga qaranka Soomaaliland oo ku leeyahay magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxaana idin soo jeedinayay anigoo Cabdullaahi Cabdicaliya dhinaca kamarada iyo farsamaduna waa Maxamed Xasan Cali daawadayaal inta aynu ku kulmi doono barnaamij midkan la mid ah geesteeda waxaanu idinkaga tagaynaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi ta'ala wa barakaatuh